السلام عليك أصحابي aad baan ii salaamay waa maxay qaladka ugu weyn aan galno intaynu nool nahay qaladka ugu weyn aan galnaa waxa weeyaan waqtigeena inooga bilaa macna ku lumina ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku siiyey waqti kaas ugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waqtiga ma lahaan kartid laakiin waa isticmaali kartaa waqtiga ma haysan kartid laakiin waxaad ku bixin kartaa hadiyad ahaan nasiihanadu sheegaan waxa la dadku waxa noolaa 3 ilaa 78 inta u dhaxaysa aan seexanaa 8.3 sanadood taasina waxay ka dhigantahay 3 meelood oo meel nolosheena ku dhawaad waan seexanaa laakiin boqolkiiba 30 dadku ma haystaan hurdo raaxo leh shaqeeya waxay shaqeeyaan 10.5 sanadood noloshooda waliba waa dadka fikiraya maahan dadka Soomaaliyeed ee iyagoo 25 jira guryahooda fadhiya hooyadooda iyo aabood ka sugaya cuntada maahan dadkeena ka xishoonay inay shaqeeyaan ee lewa ima qadanta shaqadan waayo waxaan soo dhameeyay jaamacad maahan dadkeena Soomaaliyeed ee maalin walba leh hooyo waxay karaysaa bariis qaraxa amba aaba muxuu lacagiisiin waayay dadka shaqeeya 10.5 sanadood noloshooda maaha dad horumar badan gaaray laakiin waxay dhaamaan dad badan oo Soomaaliyeed maahan dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad caajis amba xum laakiin waxa ku jira dad badan oo isla weyni ku jirto oo moodaya shaqooyinka yar inay ka sharaf sareeyaan amba inay ka weyn yihiin kiiba konton nagmida shaqooyinkooda kuma faraxsana waxay rabaan inay ka tagaan waxa kaliya aad kaystan karin waa waqtiga laga yaabo lacag inaad kaysatood urursan karto 9 sanadood nagamida nolosheena waxaan ku bixinaa TV-ga hortiisa amba social media 7 sanadood waxaan ku bixinaa nadiifinta guryaheena 3 sanadood barna waxaan ku bixinaa shopping amba isqurxinta 5 sano kamida nolosheena waxaan ku bixinaa saaxiibadeen 4 sanana waxaan ku bixinaa fikir aan rumoobahayn ama aan dhaqdhaqaaq u sameeynahayn 5 sano nolosheena kamida waxaan ku bixinaa tamashleen iyo meel hablayan soo arkay waxaan noloshaada waxba ku soo kordhinahayn 7 sanadood ilaa 10 sanadoodna waxaan ku bixinaa korinta caruurteena kulli marka la isku wada geeyo waa 55 sanadood 55 sanadood maxaa ku soo qabsoomay riyooyinkaaga ma rumaysay amba wax kamida ma gaadhay haddii ilaahay ku weydiiyo maxaad soo qabsatay waqtigan ku siiyay waxaad ugu jawaabta ma haysaa ma waxaad ku jawaabi doontaa 25 sano waxaan ka sugay hooyadii aabahay bariis mise waxaad ku jawaabi doontaa waxaan sugay waqtiga saxda intuu imanayo ma jiro wax waqti sax ah la yiraahdo adunba waqti sax ah samaysan kara adunbana ka faa'iideysan kara alla ujeedo ku kani halkan adduunyada ujeedadaada garo ilaahay karaamo weyn buu ku siiyay karaamadaada hoos u dhigin ee mar walba adigu iskaraamee warka xumaan ku haya waqtigu wuxuu u duulayaa sida diyaaradda camal laakiin warka ka sii fiican aan ku haya waxa weeyaan inaad adigu pilotkiisa noqon karto oo waqtiga wadi karto bal waxaad malaysataa subaxdii markaad kacdo jeebkaaga waxa kuugu jira 86,400 dollar oo lacagta Mareykanka maalintii markay dhamaatana shilinka ma haysid ama bixi amba ka faa'iideyso wax ku qabso ama ha ka luntaba haddana subaxdii kale markaad toosto intii leeg baa kuugu jirto lacag haddaba maalin walba saasaa dhacda maalin walba waxaad haysataa 86,400 second sabab ma in lumina waqtigeena oo naga faa'iideyso weyna sabab ma in lumina waqtigeena oo lumi weyna lacag laga yaabo lacag hadaad lumiso inaad heli karto amba dib u shaqaysan karto laakiin 1 minute 1 second oo ka luma weligii kuma soo noqonayo hal maalin oo ka tagta kuma soo noqonayso maalinta waxaad u sii dhiibato baad qabtaa haddaad rabto inaad ogaato qiimaha sanad waxaad weydiisaa arday ku dhacay imtixaan oo ku qasban inuu ku celiyo sanad haddaad rabto qiimaha hal bil inaad fahanto waxaad weydiisaa hooyo 8 bilood ilmaheeda caloosha ku soo siday oo bishii ugu dambeysay 9aad oo ilmaheeda ku dhex dhintay qiimaha hal week inaad fahanto waxaad weydiisaa journaliste ay u shaqeyn waayeen mishinadii wax ku daawacay qiimaha hal maalin inaad fahanto waxaad weydiisaa qof uu ka dhintay qof uu jecel yahay sidoo maalinta dareemay qiimaha hal saac waxaad weydiisaa laba qof oo is jecel oo hal saac gudahooda ku kala tagay qiimaha hal minute inaad fahanto waxaad weydiisaa qof diyaarad ka tagtay ama bas oo ka soo habsaamay qiimaha hal second inaad fahanto waxaad weydiisaa qof shil galay oo 6 mid kamida ku waayay hal second gudaheed qiimaha second birthday inaad fahanto waxaad weydiisaa orodyahan galay kaalinta labaad inta badan waxaan ka fikirnaa dad kale kaasoo aan ku lumino waqtigeena sidaan u badannahayna ma fahano qiimaha uu noo leeyahay waqtigeenu naf ahaan waxa inaga soo baxa laba cod mid kamidi wuu ku dhiirigelinaya oo wuxuu rabaa inaad hore u socoto mid kamidina wuxuu ku keenayaa caajis oo sahaan buu ku dhigaya labada cod mar walba way haystaan ilaa markaad seexato ilaa markaad ka soo kacayso bal nasiibi keebaa labada cod guuleysanaya subaxdii markaad hurdada ka kacdo labada cod mid wuxuu ku dhahayaa iska hurud saacad kadib baad kiciye wali waqti waad haysataa ka kalena wuxuu ku dhahayaa waqti kuuma hadhin kaco hore u quraaco sida waxaad rabto u qabsato marka adiga go'aankaaga weeyaan kaad raacdo ayaa labada guuleysanaya nolosha iyo waqtigu waa labada ugu fiican ee layna amaahiyay noloshu waxay ku tusaysaa waqtiga saad isticmaalayso waqtiguna wuxuu ku tusayaa qiimaha noloshaada ay leedahay mar William Shakespeare waqtiga la weydiiyay wuxuu dhahay waqtigu wuu u gaabiyaa dadka raba
waana uu dheereeyaa dadka cabsida ku nool. Waqtigu aad ayuu ugu dheer yahay dadka murugaysan, aadna wuu ugu gaaban yahay dadka xafladaysan. laakiin dadka jecel faa'iidaysiga waqtigu weligii wuu la jiraa. hadalow dhammaan, isticmaal waqtigaaga ka faa'iidayso, jar intaanu ku jarin waqtigu. aad iyo aad baad mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadgelyo.